guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Cimilada Missouri si dhaqso ah ayay isku beddeshaa. Maalin qorrax baxaysa ayaa si dhaqso ah isu rogi karta qabow iyo dabayl. Cimilo aad u ba'an oo Missouri ka dhacda sanad kasta ayaa geeri sababta. Si aad uga ammaan gasho, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa la filan karo iyo sida naftaada aad uga ilaalin lahayd. Cabsida ugu daran dhibaato kasta dhanka jawiga Missouri ee aan wajahno waxaa ka mid ah onkod, daad, baraf iyo roob baraf wada iyo duufaan. Adeegga Cimilada Qaranka waxay la shaqaysaa xarumaha telefishinka iyo xarumaha raadiyowyada maxalliga inay annaga nooga digaan goorta cimilo daran ay soo socoto. Waxaa dhici karta inay soo saaraan feejignaan cimilo daran, taasoo micnaheedu tahay in xaaladaha dhanka jawiga ay sax yihiin oo jawi daran ay dhici doonto. Ama waxaa dhici karta inay soo saaraan digniin jawi daran, taasoo macnaheedu tahay in jawi daran ay soo socoto oo adigana lagaa doonayo in naftaada si markiiba aad u badbaadiso. Sidoo kale, jaaliyado badan ayaa qaba buun digniin ah oo bannaanka ku yaala oo jawiga xun dartii loo yeeriyo oo la shido haddii ay hadda imanayso jawi daran. Haddii aad maqasho buunka jawiga xun, markiiba aad qaybta hoose ee gurigaaga. Haddii gurigaaga uusan lahayn qaybta hoose ee guriga, aad qaybta ugu hooseysa ee gurigaaga. Gal qol aan lahayn dariishado. Waxaa dhici karta in aadan maqlin buunka cimilada xun haddii aad ku jirto gudaha ama gaariga dhexdiisa. Raadiyowga digniinta cimilada ha kuu shidhnaado si marka aad u maqasho digniinta jawiga xun sida ugu dhaqsaha badan oo marka ay digniintu soo baxdaba. Maadaama Missouri ay qabto meelo badan oo god iyo doon iyo gidaaro biyo fadhiyaan, markasta oo uu roob da'o waxaa dhici karta daad. Biyaha waxay ku ordaan godka oo si dhaqso ah ayay wax u geli karaan meelaha biyo degga iyo keliyada. Waxaa aad muhiim u ah adigu aad marnaba isku aadadayin in baabuur aad ku wado biyaha duufaanta. 2 feet ama 61 sentimitir oo biyo ayaa baabuur dhaqaajin kara, oo 6 inji keliya ama 15 sentimitir oo biyo ah ayaa cagahaaga soo gaaraya. Haddii baabuur aad inta roob culus ay socdaan oo aad timaado meel biyo uu fadhiyo ee jidka dhinaciisa, ha isku dayin inaad biyaha aad jeexdo. Missouri waxaan dhahnaa gadaal u noqo oo ha quusan. Onkadka Missouri ka dhaca ayaa sidoo kale aad halis u ah. Hillaaca sanad kasta dad ayuu dilaa. Waxa uu nooga digaa in hillaaca uu soo dhow yahay. Haddii hillaaca aad maqasho, waxaad halis ugu jirta in guguc uu kugu dhaco. Haddii hillaaca aad maqasho, markiiba gal dhismo shub ah oo daaqadaha iyo biyaha ka fogow. Haddii aad baabuurkaaga ku dhex jirto oo aadan garanayn dhismo shub ah, dariishadaha kor u qaad oo gaarigaaga isaga dhex jir ilaa roobka uu ka gudbayo. Jiilaal, Missouri ayaa badanaa wata baraf culus iyo roobab baraf ah. Baabuur ku wadista barafka iyo barafka soo da'a ayaa aad u adag. Si tartiib ah baabuurka u wad oo naftaadana si waqti kuugu filan aad ku gaabinayso baabuurta ka hor inta aadan joogsan ama aadan dhinac u leexan. Halkan ay ka ahaan lahayd in bareegyada aad ku wada istaagto. Bareegyada dhowr jeer riix si baabuurka u yara qaboobo. Iska taxadir marka aad ku socoto barafka ama barafka da'aya. Xiro kaba adag oo aan lagu taraaraxayn. Tilaabo yar yar qaado oo miisaankaagana la soco. Maalmaha uu baraf xun dhaco ama baraf roobo, waxaa dhici karta in korontada gurigaaga ay kaa tagto. Raadiyowga bateriga ku shaqeeya gurigaaga ha kuu yaal
si markaa aad u dhagaysato goorta dowladda deegaanka ay bixinayso tilmaamaha la raacayo. Horey u qorshayso meel gurigaaga ka mid ah, dhigo biyo dhala ku jira, nal gacan iyo saadka la isku daaweeyo. Meel dhigo cuntada aan u baahnayn in la kariyo. Iska taxadir sida gurigaaga aad u kululeynayso. Marka gurigaaga korontada ay ka tagto, isticmaalka goobta dabka lagu shido ee guriga waa ammaan, balse matoorada iyo waxyaabaha kulaylka dhaliya waxay soo tufaan maadada carbon monoxide. Tan waa hawo halisa oo aadan arki karin ama aadan urin karin, laakiin wuu ku dili karaa. Dabaylaha Missouri ka dhaca ayaa sidoo kale dilaa ah. Dabaysha waxay u badan tahay inay dhacdo goorta jawiga qabowga iyo jawiga diiran ay kulmaan. Gobolka Missouri waxaa u badan tahay inay noo timaado dabaylo inta lagu jiro xilliga guga iyo xilliga dayrta. Dabaylaha waxay u egyihiin sida caad isdaba haysta oo u eg qaab sida dubladda. Waxaa la yiraahdaa inay u eg tahay sida tareen soo socda. Haddii duufaan aad aragto ama aad digniinta duufaanta aad ka maqasho raadiyowgaaga, digniinta jawiga isla markiiba tag dhismo shub ah. Tag sagxadda ugu hooseysa ee guriga oo gal qol dariishada aan lahayn. Waxaa ugu fiican qaybta hoose ee guriga. Raadiyahaaga dhagayso oo sug ilaa mas'uuliyiinta ay kugu yiraahdaan in ammaan ay tahay oo bannaanka aad soo bixi karto. Gobolka Missouri cimilada daran si dhaqso ayay u timaadaa oo si aad u dhaqso ayay u baxdaa. Dhagayso digniinta raadiyahaaga jawiga si aad ugala socoto digniinta iyo la socoshada jawiga, oo raac tilmaamaha lagu siiyo si qoyskaaga aad u badbaadiso. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas faya qaba iyo adiga oo faya qaba.